haddaad rabtid inaad ogaato qof saameyntiisa ama everytigiisa uu bulshada dhexdeeda ku leeyahay waa Cristiano Ronaldo waxaan ka badnayn 12 saacadood ayuu shaaciyay inuu ku soo biiray barta YouTuber-ka loo yaqaan waana meesha kaliya ee social media ee Ronaldo uu ka madax banaanaa horay waxa uu haystay rikoorka qofka shakhsiga ah ee ugu follow ka badan adduunyada dhan Instagram-ka, Twitter-ka, Facebook-ka iyo social media kalaba Ronaldo hadda wuxuu iskeenay YouTube-kii dadkii YouTube-ka ka bariisan jiray way yaaban yihiin ninka ugu rukumashada badan waa ninka loo yaqaano Mr Beast oo dalka Mareykanka u dhashay oo sameeyo barnaamijyo marka la fiiriyo inta badan maad u badan iyo sidoo kale barnaamijyo abaalmarin badan lagu bixiyo Ronaldo wax ka yar 90 daqiiqadood ayuu ku helay 1 milyan iyo bar waana rikoorka qofkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee shirkadda YouTube-ka gaara abaalmarintii ayaa la siiyay buttonka ahayd caruurtiisa la dabaaldegay hadda aan idina hadlayno wax uu maraya 16 milyan laakiin markuu muuqaalkan ku soo gaarayo waxa laga yaabaa inuu ka badan yahay oo 20 iyo 17 ba oo xiray Ronaldo sababaha ugu soo biiray bartan YouTube-ka waxa uu ku sheegay maadaama hadda howlgab uu noqon doono oo ciyaaraha uu ku fadhiisan doono oo da'da 39 kana uu jiro 40 kana uu gali doono in noloshiisa iyo qoyskiisa iyo sidoo kale waraysiyo iyo barnaamijyo kale uu ku soo bandhigi doono marka arintaas ugu weyn wuxuu yiri samafalka iyo arimaha qoyskayga iyo nolosheeda wax ku saabsan ayaa halkan u imid macnaha inaan ka bariisay oo iimaan u leeyahay ogaawna Ronaldo waa shakhsiga ugu horeeyay kubadda cagta ee gaara 1 bilyan oo lacagta euro-ga ah uu haysto hantidiisa saafiga waa ciyaartooyga ugu mishaarka badan ciyaartooyda kubadda cagta ee adduunka ay hadda ka ciyaara horyaalka wadanka Sacuudi Carabiya marka maxay isleedahay Ronaldo YouTuber ahaan uu ku soo gudbin karaa dadkii ayaa yaaban oo sida xawliga ah ee u socdo